بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ولا الله مسلمين مال كستو نقل السعطان ونقل داونيسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وحو قدسنا سبحانه وتعالى إنه قلوبتنا شرحه ونقد عبادتنا أقبله توفيقنا وفجيه أموات المسلمين لمتى الله ونحرسته إن شاء الله تعالى. هل كان وحكسو قد بين دونا دي لا قدره قصيرة عجيبة هو إنه قشة كان النبي عليه الصلاة والسلام مقع النبي مركا مقشي وحرجينينا قصة لصحيبك عليه الصلاة والسلام. قصة وحنا قشة كان النبي عليه الصلاة والسلام حبيبك وحير نين باجري تاجر يعني نين إلهي حول السيئي حولاس إلهي مركوسي سبحانه وتعالى وحو نين كان عادو أهان جرته دغنو أهان جرته إنو دادك وناجيو dad hooyooyinka garobada buu yani ku sadaqaysan jiray, ilmaha agoonta buu xoolo siin jiray, dadka ducafada buu kaalmeyn jiray. nin wuxuu ahay dadka aad u wanaajiyo oo garab u noqdo. waxaa wataa u sii dheereed dadka markii oo u imaadaan ay deen ka codsadaan mu ku dhigi jiray, deentii buu siin jiray. markay ku dhibto inay bixiyaanna muddada u kordhin jiray. markuu muddada u kordhiyana hadday bixi waayaan ku sii cuslaatana waa iska cafin jiray. markaasaa nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam adoonkan ilaahay buu hor imaanaya. markaasaa leeyahay bal waran haye xoolahan ku sii maxaa ku qabatay? markaasuu wuxuu ilaahay saan baa ku qabtay, ilaahayna waa ka ogyahay. dadkii deemaysan dadka ay imaan jiray, ilaahay oo deen bay weydiisan jireen, deentii baan siin jiray, muddadii baa u dheerayn jiray. mar alle markay bixi waayaanne ilaahay rabbi raxmaanu adiga dartaa baan ilaa isaga cafin jiray. markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala أنا أولى بك من ذلك. أنا أتاس كامودن يعني هداد بأدومدي u dhaafi jirtay wixii deeni ka qaataan aniga awlo aabina ma ku dhaafaana ba kaamudan ba ee malaa'ikteedii maraqaati ka noqdo waan u dhaafay. ninkaas waxa uu ku helay yani wanaagaas jannadaas irlada raxmaanka wuxuu ku helay waa dadka wanaagsan jiray. waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa weydiisanaynaa dadka saalixiinta magacooda inuu yeelo khaatumadana noo wanaajiyo. هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.